بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ maanta ma kusoo dhawaada kulan kale iyo xeer kale oo aynu kusoo qaadanayno taxanaheennii xeerarka nolosha. Aadamuhu guud ahaan waqti kasta iyo waay kasta uu nool yahay wuxuu raadiyaa ama uu mar walba ka shaqeeyaa sidii uu u samayn lahaa isbeddel si uu nolosha ku jiro mid ka fiican iska beddeli lahaa. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala nolosha markii uu abuuray koonkan xeer buu u sameeyay isbeddelka. Ilaahay wuxuu xeer uga dhigay isbeddel kasta oo noloshan aadamaha ama qof ama qoys ama qaran madhaho kasta ku dhacaya inuu ku salahaado oo uu ahaado xeerkaasi in ciddii isbeddel rabtaa iyadu marka ugu horreysa isbeddesho. Waayo sidii aad shalay u socotay iyo halkii aad maraysay adigoo maraya iyo waddadii aad mari jirtay inaad filato jawaabtii ka duwan ama meeshii ka duwan inaad gaadha waa midaan suuro galin. Suuratu Racd aayadda 11 Ilaahay wuxuu leeyahay inna Allaha laa yughayyiru maa biqawmin xataa yughayyiru maa bianfusihim. Isbeddelku markaa lababa uu noqon karaa. Halka aad joogto meel ka wanaagsan inaad aadid, horumar iyo positive iyo wax wanaagsan ah ku kordhay ay noqoto, iyo halka aad joogtid inaad ka sii dhaadhacdid aad ka sii daadegtido aad hoos uga sii hoobataba. Labadaba waxa xeer u ah oo sal u ah oo Ilaahay uga dhigay dadkaas iyo ummadda iyo cidda doonaysa isbeddelku inay samayso waxa ay ka shaqeynaysaa inay beddesho. Tusaale ahaan 1994 Rwanda waxa ka dhacay mid ka mid ah xasuuqyada adduunka ay dad dhexdooda is xasuuqaan waaweynaa 700,000 oo qof ilaa milyan inta u dhaxaysa bay iska dileen dad dalkooda degan oo Rwandese ah. Heer sheekooyinka qaarkood la soo gaarsiiyay dadka qaar in ay badbaadeen sababtoo ah dadkii wax dilayay inay ka daaleen. Heer xasuuq halkaas inuu gaaray waa dad is wax wada ahaa laakiin waxa weeyaan is xasuuqay gamis ka dhigay. Waa 1994. maanta 2024 ama 2024 Rwanda waxay ku jirtaa dalalka ugu horumarsan marka laga hadlayo Afrika. Isbeddel waxa la sheegaa qeyr caadi ah oo xawli ah in dalkaasi uu ku dhaqaaqay marka la garab dhigo dalalka kale ee dhigiisa ah ee Afrika oo qaarkood laga yaabo weli inay sidii soconayaan. Isbeddelkaasi wuxuu ku yimi Rwandisku iyagoo sidii isu nacab oo Tutsi iyo Hutu isku dilaya oo ethnically isku haya oo iska laalaada oo qowmiyad aanay arkeen qowmiyad ay gam ka siinayso oo sidii wax weeyaan ay 94 ka hor u dhaqmi jireen u dhaqmaya horumarkan iska may gaadhin. Waxay beddeleen dhammaan hab nololeedkoodii oo dhan. Nidaamkii dawliga ahaa ee yimi, dhaqaalihii la sameynayay, xilalkii dawladda sidii loo qaybsanayay, sidii dalka loo wadaa wax weeyaan dhisanayay, sidii wixii dhacay ee foosha xumaa 1994 looga heshiinayay, waxaas oo dhan ba waxay ka dhigteen xeerar iyo qodobo iyagoo oo isu laab furan oo isu kal furan oo waxay isu qarinayn ay dadka wada dhisteen dal cusub oo la yiraahdo Rwanda oo ka mid ah dalalka markaa maxay Afrika ugu horumarsan dhaqaale ahaan, dad ahaan iyo dawlad ahaanba. xeerka Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay inna Allaha laa yughayyiru maa biqawmin xataa yughayyiru maa bianfusihim. waxaanu ka baranaynaa noloshana way soo jirtay haddana way jiri doontaa ciddii rabta inay isbeddel samayso dhab ahaan wixii ay ka shaqeynayeen ama xaaladda ay ku jiraan waxa ay ka shaqeeyaan waxaan ahayn waa inay ka shaqeeyaan. wixii wax ka wanaagsan hadday rabaan waa in tallaabooyinka ay og yihiin ee har iyo habeen ay ka hadlaan ee ay ka warramaan waa inay practically u beddeli karaan oo ay isbeddelka iyagu ay samayn karaan. markaasaa noloshooda iyo waayahooda iyo ummad ahaan iyo dal ahaan iyo dad ahaanba ay isbeddeli karaan. xeerka kan ku xiga intaan ku kulmi doonana dhammaantiin waxaan idinku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.